بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقون. سورة مدنية وسورة مدنية وسورة مدنية أيضنا وحي كهل ليساء وسورة أي يعني وحوي مجا عيدا منافقين تعال موضوع عادية مجا عيدا اسكمدها وحي كهل ليساء والمنافقين. رب يقول سبحانه وتعالى إذا قرت جاءك يكوي مدان محمد المنافقون منافقين تمرك يكوي مدان قالوا وحيدان نشهد وحن قرينا أو مقاتك النهي إنك أدقل الرسول الله إن رسول كلاج صاصي داي والله ألنا يعلم أكسوية إنك أدقل الرسول الله رسول كلا إلى ألا أكسون مقاتك والله ألا يشهد وحو مرقاتك فريا إن المنافقين منافقين لكاذبون إلي بين شيء بين على يلوهم اتخذوا وحي سميستين أيمانهم داره وديبي جنة قاشان كسميستين فصدوا مركزي جيديا ضدكي بي كجيديا عن سبيل الله ألا تشكيسي كجيديا إنهم إيجا ساء وحا حماضي ما شيء كانوا أيهن يعملون كوسمي ذلك كاتنا وعمل حماض وضيه عمل كود حميد أول حماضي ذلك كاسي بأن ثم هدنا كفروا أي كفريا فطبع مركزان لأودي على قلوبهم قلوب تذكر كودان لأودي وفهم يقول لا يفقهون حول فهم ما ضد wax garada ma munaafiqiintu markay ku yimaadaan waxay leeyihiin waxaan marxaati ka cayna ama aan qirayna inaad rasuulka ilaahay tahay nashhadu innaka la rasuulullah yaani qalbigana waxaan ka qirayna afkana aanu kaleenahay oo ka sheegayna inaad rasuulka ilaahay tahay saasi ku dhaaranaya waxa leeyahay wallahu ya'lamu innaka la rasuuluhu inaad rasuul ilaahay tahay منافقين مرخاتك النقطة اللهم بباهنا محل لو قبها منافق إنه الرسالة على القراء وحل لو قبها مجر محيل إلهي وأقيها إنا الرسول إلهي الله بقير يبا ألا ننقل الرسالة دي سقير والرسول إني يهي كم مرخاتك عيو منافق محل لو قبها بنتيس والله يعلم إنك للرسول هو والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إني بيش شيئا مركي إليهين waxaan qiraynaa inaad rasuul ilaahay tahay sida markay leeyihiin inay been soo tahay Allah waa ogyahay subhanahu wa ta'ala marxaatibu kay wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun oo say been ku sheegayaan in afka waxay ka leeyihiin rasuul ilaahay inaad tahay baan qiraynaa been waxay ku sheegayaan qalbigooda waxa ku jira iyo afka waxay ka leeyihiin waa isdaba martiin saasaan qalbiga waxa ku jira inuu yahay nin carbeed oo madaxnimo doon ah afkana waxay kala yihiin inuu ilaahay ku soo dirsaday oo maqaatikana beenalayal ma yihiin beenalayal ma tantood waxaan qiraynaa markay leeyihiin run haday tahay waxa qalbiga ku jira waa inuu afkuna ka turjumo laakiin hadii afkii uu sheego wixii qalbiga ku jira wax ka gadisan waa been cad wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junna daaraha ay daaranayaan oo ku daaranayaan ilaahay baanu qirsanahay waxaanu ku dhaaranaynaa rasuul ilaahay tahay dhaartan faraha badan ay dhaaranayaan waxay ka dhigteen gaashaan ay isku ilaaliyaan wadan soo marnay suuratul mujaadila ku soo maray gaashaan ay xoolahooda iyo naftooda ku ilaashadaan bay ka dhigteen oo ku gabadaan macna gabaad bay ka dhigteen markaas ay dadkii jidka ilaahay ka duween oo ka leexiyeen yaani bulshadii bay ku dhex jiraan suura mu'miniin iyo islaamna waaleeyihiin halkaas intay dadka ugu gabadeen bay dadkii ka leexinayaan ilaahay jidkiisa tawxiidkii iimaankii saxda ahaa jihaadkii khayrkii bay dadkii ka duwayaan fasaddu an sabilillah waxa xumaaday rabbi subhanahu wa ta'ala amalkoodii waxay sameeyaan ayaa xumaaday muxuu u xumaaday amalkoodu wuxuu u xumaaday sababtiisu waxa weeye way rumeeyeen kadibna way kufriyeen markay kufriyeen qalbigoodii baa la awday oo la xiray kufrigii baa lagu xiray واحد بي فهميان نبجر فهم لا يفقهون حفهميان روح مرهدو انتو ايمان لي مادو ايمانكي كتغو كفر آدو كفرقا او آدي وحاكت لنا ان قلبكي سلا اودو للدبولو كفرقي لقود دبولو ايمان انو قلنا الله يحرم مرهدو هيركا قالنا نتيجة دي سو وحدة فهم ماي والحقائق لي وقنبك اكتي سدب قدوميس مركان سو حقي وحقو فهميان انو باطلي سنة دي وحقو فهميان انو بدعتا جدكي توصنا إنه قلوا عينه هو أركيه فهم لا يفقهون لأنه قلبي أودون قلبي هدوء أود مبسوي وحنا كل حرم طبعا ساس ربي سبحانه وتعالى إنه شيء إذا قلت جاءك أي كوي مادان محمد والمنافقون منافقين فمركي كوي مادان قالوا وحي إلونا نشهد وحن قرينا وأن مرخاتك عينا إنك أذقل الرسول الله الله كي أصدر صدئنا تعالى
wallahu allana yaclamu walxaal bay saa leeyihiin allahu alla yaclamu uu og yahay inaka adiguna rasuuluhu rasuulkiisii uu soo dirsay inaad tahay wallahu alla yashhadu wuxuu markhaati furayaa oo uu qirayaa ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna kuwa beenaalayaala inay yihiin oo warkaa ay been ku sheegayaan ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahoodiibay junnatan gaashaan ka samaysteen dhaaraha ay dhaaranayaan way ku gabanayaan gabaad bay ka dhiganayaan fasaduu markaasay jeediyeen oo dadkii ka jeediyeen can sabiili illahi jidka ilahay bay ka jeediyeen inahum iyaga saaa waxaa xumaaday maa kaanuu waxay ahayeen yacmaluuna kuwa sameeyey dhaqankaas dhaqan aada u xun waaye dalika arrinkaasi muxuu dhaqankooda u xumaaday sababtu maxay tahay waata sababti dalika arrinkaa oo camalkoodu inuu xumaadaa biannahum bisababi annahum sababtiisu waxa weeye annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen iimaan bay la yimaadeen hadalkaas aamanuudaasi waa tan ku suuratu baqara kaga soo hadalnay iimaankan lagu sheegayo ma iimaanka daahirka aba oo weligoodba qalbiga iimaan saxa ma gelin miya waa ra'yi ay mufasiriinta qaarkood qabaan aamanuudu mise waa iimaan xaqiiqiyaho markii hore iimaan dhabay la yimaadeen iimaankii dhabtaa kadibna way ka noqdeen oo gaalnimay dib ugu noqdeen labadaba ra'yi laba ra'yi mufasiriintu leeyihiin dalika biannahum aamanuu uma kadibna kafaruu way kufriyeen fatubica markaasaa la awday calaa quluubihim quluubtooda korkoodaa la awday oo fahum iyagu laa yafqahuuna waxuma fahmayaan leanna qalbigii wax lagu fahmi lahaaba waa awdanya waidaa goortii ra'aytahum aad aragto munaafiqiinta tucjibuka waxaa ku yaabgelinaya ajsaamuhum jismigooda jismiyaalkooda iyo jirkoodaa ku yaabgelinaya wain yaquluu hadday dhahaanoo hadal ay dhahaan tasmac waad maqli liqawlihim odhaahdoodaad maqli waad dhegaysan kaannahum waaba ayagoo bu rabbi yihi khushubun qorye ah qoryahaasoo musannadatun la tiirtiiriyey meel lagu tiiriyey yaxsabuuna waxay malaynayaan kulla sayxatin qaylo kasta waxay u malaynayaan calayhim korkooda inay waaqicatan calayhim inay korkooda ku dhacaysay moodayaan qaylo kastoo soo yeedha hum iyaga ayaa alcaduwu cadowga dhabta ah cadowgiina waa iyaga un ee faxdarhum ka digtoonow nebi maxamed iska jir taxadar ka qaada nimankaas qaatalahum allahu allaha lacnade annaa sideebaa yu'fakuuna loo leexinayaayo xaqa looga duwayaa waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum ayaga marka lagu yidhahdo tacaalow kaalaya yastakfir dembi dhaaf ha weydiiye lakum idinka rasuulullahi rasuulka ilahi dembi dhaaf ha idin weydiiye alle haddii la yidhahdo lowow way laabaan ru'uusahum madaxyaalkooday laabaan wara'aytahum waad aragtaa wara'aytahum waad arkaysaa yasuduuna iyagoo jeedsanaya oo ka jeedsanaya xaq walxaal hum iyagu mustakbiruuna ay yihiin kuwo isweynaysiinaya sawaaun waxaa eg oo isku mid ah calayhim korkooda waxaa isugu midoo siman astakfarta dembi dhaaf weydiisayaa lahum iyaga am amase lam tastakfir dembi dhaaf ma aadan u weydiinina lahum iyaga lan yakfir allahu alla u dhaafi maayo lahum iyaga u dhaafi maayo maxaa yeelay ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii alfaasiqiina ee jidkiisa ka baxay waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum waxa weeye nimanka markaad u fiirsato jirkooda iyo sida ay u yaalaan waa niman aada u bogayso waa niman qurqurux badan oo qoor ah oo ishu aynan macnaha ka daalayn siday u yaalaan labiskooda iyo quruxdooda iyo itaalkooda iyo intay leegleegyihiin waad la yaabaysaa tucjibuka ajsaamuhum qoor wey wain yaqulu tasmac liqawlihim afkooda haddaad fiirisay waxay ku hadlayaanna waa degaysano waa niman aftahamiin ah afminshaaro wey xagga afkiina afminshaaray ka yihiinoo markay warramayaan oo hadlayaan waa kusoo jiidanayaan ayaga markaad fiirisay say u yaalaan iyo jirkooda iyo labiskoodana waad u bogaysaayo waad la yaabaysaa xaggaa sidaasay ka yihiin waa daahirka korow laakiin gudahooda u imow kaannahum khushubun musanada warbari subxana watacala waxaad moodaa qoryo la tiirtiiriyey jirid la tiiriyoo kalead moodaa meel lagu tiiriyey sida ay u yaallaan yani xooggoodii baa weli laga warramaya sidaa markay yihiin waxaad u timaadaa akhlaaqdooda caqiidadooda dadnimadooda iimaankooda waa eber marka waa qolof meel yaallo wey qolof dagob weyn maaragtay weligaa oo yani waxa weeye aada la yaabayso gudihiisa markaad gashana yani intuu yani waxa weyaan xordan oo gudaha wax kaga jira uusan jiro waa geedkaa taagane quruxda badane la yaab kale gudaha oo dhanna dhuuxii eber ka yahay
sida ilaahay u sifeynaya subxana watacaala fiir korka waa ka quruxsan yahay hoos oo dhanna qashin baa yaalla qalbigooda nifaaq iyo shaki baa yaalla fulaynimaa ka buuxday iyo iska kalsooni la-aan waxaa niman mawqif lama aho markay meel joogaanna waa dad nooc kalea markay xagga joogaanna weji kale ku joogaan marka wixii dadnimo la odhan jiray iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo mabda eber bay ka yihin xagga suuradooda markaad fiirisana iyo muuqaalka korena waa ku cajabinaya saasaa ilahay ku tilmaamaya subxana watacala yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim waxaa laga wadaa fulaynimadooda qayla markay soo yeedha idinkaa laydinku wadaa bay lehi jabaqdii iyo dhaba wallahi idinkaa laydinku socdaa bay lehi sababta ma taqaanaa yani waxa wey ruuxu hadduu dakano qabo ama uu is-og yahay inuu wax qarqarsanayo mar walba oo waxoogaa dareena yimaadaba wuxuu isleeyahay wallahi waa lagu fahmay wallahi waa lagu malaha qur-aan idin sheegayaa soo dego idin magacaabahay malaha sir baa idinka baxday qaylo yar hadday yeedho wax yaroo qaylaha hadday soo yeedho waxay isleeyihin idinkaa laydinku socda waa fulaynimadoodii isku kalsooni la-aanta wey macnaha leanna waxa wey qalbigaa waxaan la ogeyn baa ugu jiro xumaantaasaa ku jirta macnaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay nimankaas in ay yihiin cadowga rasmiga iyaga wey hum lcaduwu munaafiq waa cadowga rasmiga wey maxaa yeelay wuxuu ku geysan karaa dhib uusan gaalka cadi kuu geysan karin gaalka gaalnimadiisu iska caddahay dhib uusan kuu geysan karin buu kuu geysan karaa dhexdaaduu joogaa masaajidkiibuu ku jiraa waa kula tukanayaa bulshadiibuu ku dhex jiraa dadkaa ka garan maysid gaalkaa gaalnimadiisa aad taqaano haddaad is aragtaanna waa isdilaysaan haddii heshiisa dhexoodana waa heshiinaysaan haddii kale waabaad ka taxadari kartaa laakiin ninka ku dhex jooga ku kala furfuraya isku kaadiraya arrimahaagoo dhan og sirtaada bixinaya waa isaga weeyaano hum lcaduwu bu alla subxana watacala cadow waa iyaga uun ee faxdarhum iska jir baa nabiga sal ly slm ka digtoono oo taxadirkaa ka qaado saas daraaddeed baa nabigu sal lay waslam aad buu uga taxadiri jiray ma layn jirin xataa isagoo loo sheegay inay munaafiqiin haddana nabigu sal lay waslam isma dhegan jirin aad buu uga taxajir jiray munaafiqiinta iyo arrimahoodaba rasulka sal lay slam aad buu isaga ilaalin jiray qaatalahum allahu ana yu'fakuun waana midda keentay inuu iska ilaaliyo nabigu sal lay waslam markuu damacsan yahay inuu duulaan qaado duulaan arrimaha khatartoo kale markii laga hadlayo meel loo wada idil yahay lagagama hadli jiro saas maana meel loo wada idil haddii uu nabigu meel loo wada idil yahay kaga hadlo arrimaha khatarta sirta ana wuxuu kaga hadli jiray qaab sarbeeba uga hadli jiray oo la fahmi karay masalan hadduu meel ku duulahayo oo uu ciidanka diyaar garooba inuu yidhahdo damco meeshuu ku duulayo mooye meel kaleetuu sarbeebu sheegi jiray munaafiqiintii marka waa wareerayaan warkii waxay ku bixinayaan waxaa lagu socdaa gaarisa kumana socdo mombasa lagu socdaa somal waa wareerinay jahwareebu ku ridaya nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka faxdarhum ka digtoona baa nabigu sal lay kuwii iyaga ahaabaa bulshada islaamka ilaa maanta dhex jooga laakiin mushkiladana haysata waxa way taxadarkii baan luminay somal kuwii taxadarkoodii aan la haynin baa muslimiinta meeshay maanta joogaan dhigay saas way macana ayib wuxuu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala tilmaamahooda waxaa ka mid ah haddii lagu yidhahdo warkaalaya nebigu dembi dhaaf allah idiin weydiiyey waxaad arkaysaa iyaga oo yani waxa weeyaan madaxyada laabaya waxaad arkaysaa oo jeedsanaya iyagoo isla weyn wuxuu ahaa cabdullahi ibn ubay ibn saluul munaafiqiinta odaygooda ahaa ayaa khalad buu galay markaasaa waxaa lagu yihi warkaale rasuulku dembi dhaaf allah ku weydiiyey kaale rasuulka yani u tago ilaahay ii bari dheh waxba dhihi maayo dhaaf buui iska dhaq nin xun oo wuxuu ahaa yani waxa weeye munaafiqiinta dhan odayga u abu ah marka isaga iyo kuwa lamidkaa yaa laga wadaa haddii la yidhahdo warkaalaya ilaahay dembi dhaafa laydiin weydiiyana waxaad arkaysaa iyagoo isla weyno ma wiilka yarkee shalayta isagoo qaxayo noo yimid baanu hadda anagu yaanu hoos tegin wax weydiisanayn waa iskibrinayaan madaxay laabayaan kadibna waa iska dhaqaaqayaan rabbi wuxuu yihi subxana watacala rasuulkiisa ku yidhi waa isku mid haddaad dembi dhaaf u weydiiso iyo haddaadan u weydiininba waa isku mid loo dembi dhaafi maayo mar laba in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allahu lahum 70 mar 70 goor haddaad ilaahu u dembi dhaaf tiraada nabi maxamedow lagaa yeeli maalayay islu goyn adigu ama u weydii ama hu weydiinin laakiin aniga agtayda marnaba kaa yeeli maayo munaafiq ilahu u dembi dhaaf meel adag soo war adag ma halkaasa ilahi subxana wa tacala nimanka arrintooda dhiga macna id waydaa goortii ra'aytum aad aragto tucjibuka waxaa ku yaabgelinaya ajsaamuhum jidhadhkooda yani jidhkoodu qaabku u dhisan yahay ayaa ku yaabgelinaya wain yaquluu hadday dhahaan oraah hadday yidhaahdaan oo hadlaanna tasmac waad maqli liqawlihim
orahdooda ayaad maqlaysaa soo dhageysanaysa waa niman af min shaarina saasa lagu yaqaan aftahanimadu ayaga khaas kuma aha oo aftahanimadu waa mawhibo ilaahay bixiyo oo yani waxa weeye inna min albayani la sihran wa kina ku dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam bayaanku marka waa shay ilaahay adoonka si laakiin ayagu taqriiban yani si gooniya loogu tilmaamaya in ay dadka aftahanimada ku khaldaan oo ku siraan macna kaannahum wa ayaga oo khushuun qoriyo oo kala qoryahaasoo musannadatun la tiirtiiriyey yaxsabuuna waxay moodayaan oy malaynayaan kulla sayxatin qaylo kastoo soo yeedha calayhim korkooda inay tahay moodayaan iyaga inay ku socotay moodayaan fulaynimadoodii iyo dadnimo xumadoodii iyo isku kalsooni la'aantooda way macna hum iyaga ayaa alcaduwu cadowga iyaga unbaa cadowga ee faxdarhum ka digtoonow nabi maxamedow qaatalahum allahu allaha lacnadee annaa sideebaa yu'fakuuna loo duwayaa oo loo leexinaya see loo jeedinayaao yani loo gadinaya oo xaqa looga gadinaya waa la yaab waydaa goortii qiila la yidhahdo lahum iyaga tacaalow kaalaya yastakfir dembi dhaaf ha weydiiye lakum idinka rasuulullahi rasuulka ilaahay dembi dhaaf allaha idin weydiiye kaalaya haddii la yidhahdo lawow way laabayaan ru'uusahum madaxyaalkooday laabayaan madaxay laabayaan macnaha way jeesanayaan wara'aytahum waxaadna arkaysaa yasuduuna ayagoo jeedsanaya ama ayagoo jeedinaya dadka walxaal hum iyagu mustakbiruuna ayihiin kuwo isweynaysiinaya macnaha sawaaun isku mid weeye oo way siman tahay calayhim korkooda way ku siman tahay astakfarta dembi dhaaf weydiisayaan lahum iyaga am amase lam tastakfir dembi dhaaf ma aadan weydiinina lahum iyaga waa arrin siman oo ilahay agtiisa ku siman natiijaduna maxay tahay lan yakfir allahu alla dhaafi maayo lahum iyaga u dhaafi maayo marnaba laga aqbali maayo baryadooda way macna ina allaha alle maxaa yeelay ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniya alqawma qowmka alfaasiqiina ee ilahay jidkiisa iyo daacadiisa ka baxay munaafiqiinta ilahay hanuunin maayo way macna hum aladiina yaquluuna laa tunfiquu cala man cinda rasuuli illahi xata yanfaduu walilahi khaza'inu samaawaati waalardi walakina almunaafiqiina laa yafqahuun hum iyagu munaafiqiinta aladiina kuwa yaquluuna yidhaahda laa tunfiquu ha nafaqaynina oo ha biilina calaa man cid korkii cinda rasuulillahi rasuulka ilahi agtiisa ahaaday dadka rasuulka agtiisa la socda ha biilina waxba ha ku bixinina xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan ama si ay u kala tagaan walilahi ilahay keligiina waxaa u sugnaaday khazaa'inu samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka kaydadkooda dhulalka iyo samaawaadka kaydadka ku jira ilahay baa iskale walakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yafqahuuna waxba ma fahmayaan yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddaan noqono munaafiqiintii waa welina wadaa ila almadiinati magaalada madiina haddaan ku noqono layukhrijanna walla inuu bixin oo uu bixin alacazu midka cizigiiyo sharafta badani minhaa madiine xaggeeda wuu ka bixini aladalla ka dullinimada badan buu ka saaraya walilaahi alla keligii bay usugnaatay alcizatu sharaftii iyo awood walirasuulihi iyo rasuulkiisa iyo walilmu'miniina mu'miniintay usugnaatay walakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yaclamuuna saa wax umay ogoonima wax garanaya maaha aayaadkani waxay kusoo degeen ayaguna isla munaafiqiinta sida xadiidka saxiixaynka iyo keyrkood kusoo aroray uu kutusay min xadiidi zayd bni arqam ayib wa min xadiidi jaabir bni cabdillah labada saxaabiya ka way wariyaan xadiiska nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu aaday duulaankii la magac baxay ghazwat lmuraysiya ama ghazwatu bani lmustaliq waa isku mid duulaankaa markuu nebigu aaday sal lay wasalam ayaa duulaankaas waxaa raacay munaafiqiintii qaar ka mid ah munaafiqiintii raacday waxaa ka mid ahaa cabdullahi bni ubay bni saluul ra'su lmunaafiqiin yani ninkii odayga uu ahaa baa ka mid ahaa waxaa dhacday marka laba nin oo nina yahay muhaajiriintii maka nebiga kala yimid nina uu ree ansaaradii ree madiine yahay ayaa isku dhacay biyo iyo waxbaa la isku qabsaday ceel yani biyo laga cabayay waxbaa la isku qabsaday labadii nin baa waxoogaa is-afdhaafay labadii nin baa nin walba kooxdiisii u habarwacday yaa lalmuhaajiriin buu ninkii muhaajiriga wallahi ree muhaajiriin kii ansaarina wuxuu yihi yaa lalansaar wallahi ansaaray oo laysu habarwacday nebigu sal lay slam arrintiibuu ka war helayo wuxuu yidhi ma anoo idinla joogaad maanta jaahiliyadii habarwacashadeedii ku kacdeen
dacuuha fa inaha mumtina buu nabi sallallahu alayhi wasallam waa uraysaa iska daay buu nabi sallallahu alayhi wasallam waa uraysaa arrintii meesha bay ku dhamaatay warkii sida ahaayeen labadii saxaabiye isku dhacay iyo arrintii xiisadii ka dhalatay baa waxay gaadhay ninkii la oran jiray Abdullah ibn Ubay ibn Salul markuu gaadhay baa wuxuu yiri aw fa'aluha ma sameeyeen buu ma saafay yeeleen maanta hada li wa sameeyeen markaas wuxuu yiri inma mathaluhum wa mathaluna kamathali qa'ili sammin kalbaka ya'kulka nimanka intaanu Makka ka soo qaxeen aanu ku soo dhaweynay magaalada Nadi oo maanta saan noo galay annaga iyo iyaga tusaale maanta waxa noo abuuri sida ninkii had mahmahay yiri eygaaga cayiri markaad cayiriisana ha ku cuno bal misaal tusaale xumadiisa ma maxmuudisa fi munaafiqas eygaaga cayiri adiga ha ku cune macnaha raggan shalay soo dhaweynay magaalada Nadi dejinay oo yaani wax weeyaan korsanay oo nagu bulaalay oo ba maanta annaga yaani noo gacan qaaday oo biyo nagu qabsaday oo saan noo galay Sooma eygaaga cayiri ha ku cunay ka dhigantahay buladintu marka inta muusan ku kaaftoomin wuxuu yiri hadii la laabtoon ka laabano duulaankan Madiina ku noqono midka aziiska sharaf kale isaga isku wada midka daliilka dulliga badan uu ka saari magaalada oo la wada joogi maayo marka daliilka wuxuu ku wada nabiga al-adalla nabigu ku wada al-a'azzana isaga isku wada mid labaad buu ku daro wuxuu yiri qolihiisi intuu ku jeesaday wuxuu yiri waxa saas yeelay oo sabab idinka u ah mushkilo oo dhan kullu fidna inta gal idinka sameeyay maxaa yeelay hadaad waxoogaagana aad siinaysan ka goosan lahaydeen waa iska kala tagi lahaayeen maanta kadib nimanka ay waxba la siin maxamed dadka la socdaay ayagaaba iska kala isgaaci doonay cunaqabatayn ku sameeyay waxoogaga ka goosto lan ansaar baa lagu tiirsanaa beerahoodii iyo xoolahoodii baa lagu tiirsanaayo wali qanaa'imtan iyo xoolahan iyo futuuxaadkan ma dhicin marka wuxuu leeyahay ka goosta ayagaaba iska kala tagi saddexda hadal markuu yiri waxa meesha fadhiyay wiil yaroo la dhihi jiray Zayd ibn Arqam ya ragii maqliyay kamid warkiibu aad u leeyahay ka xumaaday adeerkiibu u sheegay adeerkiina nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam nabiga markuu warkii soo gaaray Abdullah ibn Ubay oo loo yeeray munaafiq gaalib ah warka ma tiri baa ma dhihin uu ka dhaartay wiilkii yara baa leeyahay wiilka yarka hadee ismoodsiye ninkii odayga mar haduu dhaatay wiilka uma umar khaladka iska leh heedii ana la isaaray aad buu Zayd ibn Arqam arintii uga xumaaday anigu oo forro wuxuu yiri aan xataa kor fiirin karin oo forra oo adeerkana intuu yimid calaantay oo yiri warbalaaya qabay maxaa meelaha ku galay adeeg waxaan jirin baad sheegtay nabigi waa ku nacay waa lagu eedowday anigoo eedaysan oo hoos fiirinaya ayaa waxa soo degtay buu aayad kala soo degay nabiga iga dagay sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu arkay kadibna aayad kala soo degay rabbi subhanahu wa ta'ala oo arintii ku cadaynay waa iyaro nabigu wuxuu yiri ilaahay baa ku marqaati ka cayzaydo warkii uu yiri labadii war ee ugu khatarsanaba ilaahay baa soo guuray subhanahu wa ta'ala wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala marka hum alladina yaquluna munafiqintani hum iyagu alladina kuwa yaquluna oranaya la tunfiqu hanafaqinina ala man 'inda rasulillah rasuulka ilaahay agtiisa dadka ahaaday dadka rasuulka agtiisa waa saxaabadiisa kuwa la socday la soo hijrooday ee raacsan kuwa hanafaqinina biilka ka goosta saasay لا تنفقوها النفقيننا على من دول كركض عند رسول الله رسولك إله أكتساء هذه النفقيننا حتى ينفضوا إلى أي كالتقان أيقع وإسكت وكالتقي وكالدرير وحي على المركي ويانه على قبطين وقصمين وركيسي ورتوكا إلهي سبحانه وتعالى وكتشه وعري ولله إلهي كالقي يؤسرنا خزائن السماوات والأرض ملك إيه السماوات ككيدت كودا إلهي كالقي وإسكالي waxa kayd dhulka ku jira ee ku aasan iyo kaydadka samada ku jira inta ilaahay gacantiisa ku jira munaafiqaagan xunka hadii aad waxa sheegayso goosataba ma waxay kula tahay ilaahay rasuulkiisa iyo muuminiinta inuu wax u waayahay asagoo waxa kayd kor iyo hoos bayaala isagu uu gacanta ku hayo inuu wax u waayahay ma kula tahay walillahi khazaa'inu samawati wal ardi ilaahay wax u waayay saasa macnaheedu taa laga jawaabay
walakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yafqahuuna ma kasayaano waxay la tahay uun intaa gacantooda ku jirta inay arrintu tahay ma fahmayaan intaasi hadday goostaan ilaahay inuu dadkiisa biilanayo oo meel kale wax uga keenayo oo khasnadihiisa kor iyo hoos yaallo uu u furayo taa munaafiqiin ma fahamsana maskaxdooda iyo caqligooduna ma gaarsiisana macnaha ma fahmayaan bu rabbi subxana watacala saas marka sideedaba arrintan la yidhaahdo cunaqabataynta iyo dhaqaale ahaan in laysula dagaalamayo weligeed taarikhda waa soo jiri jirtay saas maana waa laysku wiiqaa dhaqaalaha mar haddii lagaa wiiqo waa lagaa adagyahay adduunku dagaalka dhaqaalaha taqriiban marxalad hadda wuxuu ka gaadhay oo u fahmay mana hadda ka hor aan laga gaadhin sababtu waxa weeye wax kaleba lagugu samayn maayo adduunkaa laisku urursa waxa laleeyahay hala cunaqabatay badeecadiisana yaan la qaadanin badeecadna yaan loo geynin maalmo kadibna waa la gaajoonoo dadkii way gaajoonayaan kadibna waaba lagugu kiciyo adigii waa lagu kala tuuri soo art saas waa midda hadda duulaanka dagaalka hadda masalan islaamka lagu hayo yani qaybihiisa ugu muhiimsan bay kamid waxay ku magacaabeen yani tajfiif manaadic alusuuliya ku magacaabeen asal raaca ilaha uu ka cabo waa in la ingajiyo sababta khaliijka loogu duulayo carabta loogu duulayo ilihii asal raaca la ingajinaya hay-aadkii iyo jamciyaadkii islaamiga ahaa ee muslimiinta wax tari jiray duulaanka iyagaa lagaga bilaabay maxaa loogu bilaabay mataqaana waxa weeyaan yani waxa wey laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu dacwadan ay wadaan iyo waxaanay sheegayan iyadaaba iska kala teg berita iyagaaba kaniisadaha inoogu imaan iyagoo gaajaysane ka kala eriya kuwa waxsiinay somat dagaalku marka waa dagaalkii waay wax isbedelay ma jiro awoodda unbaa intii ka ballaadhan laakiin dagaalku waa dagaalkii kii taajirka ahaayo waxaystay oo muslimiinta wax tari lahaayo dacwada wax tari lahaayo masaakiinta wax tari lahaa waa noocaga juuliyana waxaa laleeyahay shilin walba meeshaad ku bixinayso waa in la ogaado iska jir khalaas nin walba waxoogaagaaga yaan lagu dabagelin is-ilaali buu dhihi soomaalit marka yaa dugsi dhisi yaa masaajid dhisi yaa ducaad wax ka qaban yaa diin wax u qaban nin walba waa carray laakiin waxaad ogaataan walilahi khaza'inu samaawaati waalardi walakina almunaafiqiina laa yafqahuun gaalkana fiqi ma leh kan sidiisoo kale u fikirayana fiqhi ma leh ilaahay khasnadihiisuna wax dhammaanaya maaha diintana way socon sooma hay-adoo dhan lala dagaalam ilihii la ingeji wax walba laysku day inay sii fiicnaato mooyaane haba yaraatee wax kasi dhimi ma aragta waa la sii qaadanaya waa sii fidaysaa waa sii bulaalaysaa ilaahay subxaana wa tacaala khasnadihiisa ayna ku talagelin oon gacantooda ku jirin macnaha sidaas weya yaquuluuna waxay leeyihin lain rajacnaa haddaan laabanno ila lmadiinati madiina haddaan ku laabanno layukhrijanna walla inuu saari oo uu saari alacazu kan ciziga leh asxaabu siyarku waxay soo saaraan in cabdullahi ibnu ubay ibnu salool wuxuu dhalay wiil aada u qiimo badan oo la dhihi jiray cabdullahi ibnu cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool la dhihi jiray wiil saxaabi oo qiimo badan buu ahaa hadalkaa markuu aabihii ku hadlay oo qur-aanku soo dawaa caddeeyey magaaladii madiine markii la gelayey oo inta safartii laga laabtay magaalada lasii gelayay iyo intuu iridda istaagay magaalada iriddeeda oo seef qaatay buu aabihii ku yidhi geli maysid magaalada yaa imaa waxaad ku geli kartaa un inuu nebi maxamed kuu fasaxo iyo inaad qirto inaad adigu tahay midka daliilka ah rasuulka ilahi inuu casiiz yahay haddii kalood isdhaqaajiso qoortaad seegi qoorta kugu oli mayso ciyaar ma aha dadkan mabda' baa galay mugta aabba meesha ma yaalla mabda' baa meesha yaalla soo rasuul ilahi maada saa ku dhihin ilaa aad qirto inaad daliil tahay ama rasuul kuu fasaxo dhaqaaqi maysid halkaa taagnow meeshii isagoo taagan baa nabigoo socdo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaan ciidanka gadaal buu ka socon jiray ayuu kusoo baxay kiioo la hor taaganya markaasuu warse waxu jira wuxuu rasuul ilaahi ma gelayo ninka hadalkaa yidhi ilaa uu ka laabto ama adigoo adu idando geli maayo war inaga sii daa buuri sidii buu magaalada ku galay walowlaa nebigu uusan u fasixi lahayn waa dili lahaa ninka yidhi buu ahaa nebiga intuu u yimi salawatu rabbi wasalamu caleyh markii cabdullahi ibnu ubay ibnu salool warkiisu batay dhibkiisu ayuu wiilkiisu nebiga u yidhi markaasuu yihi rasuul ilaahay oo aabbahay dhibkuu hayo waan ogahay waxaana isoo gaadhaysa inaad damacsan tahay inaad disho aabbahay oo nin kale uu dilina waxaan ka baqayaa qalbigayga inay wax galaan ee aniga ii dir buuhi anaa dilaya markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal alay wasalam maya aabbaha mana dilayno isagaa lagu raaligelinaya ilaa markuu dhintay xataa
nebigu uu janaasadiisa tegey oo maradiisii uu kafahaan u siiyey markuu wiilku ka codsaday oo nebigu uu ku tukaday oo waa kan soo marnay suuratu tawba rabbi subxana wa tacala kaga hadlay soo marta macnaheedu waxa weeyaan marka yani taqriiban saxaabada ridwaanullahi calayhim waxaad garan kartaan iimaaniyaadkoodu meeshay joogeen ninka aabihii seef la hor istaagayo nebigu ilaa uu ku fasaxmo dhaqaaqi maysidle iimaankiisu xagee jooga ciyaar miya saas way maxaa laga rabaa waa inoo dhilay odayga maxaa laga rabaa sideeda odaygan dadka maxaa lagaga maagay saasaynu dhilay war dagaaladina odaygu waa qaldan yahay qabo oo ha la safanin khalafkiisa la safanin saas way macna ayib yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddaan laabano ila almadiinati magaalada madiina xaggeeda haddaan ku noqono layukhrijanna walla inuu saari oo saari alacazu midka ciziga badan minhaa magaalada xaggeeda wuu ka saari aladalla midka dulliga badan buu saaraya walilahi ilahay waa laga jawaabay taasna walilahi ilahay keligii bay usugnaatay alcizatu awoodda iyo sharaftu iyo walirasuuli rasuulkiisa iyo walilmu'miniina mu'miniinta usugnaatay sax casiiska ayaa magaalada joogi doona laakiin keebaa casiisa ma munaafiq baa casiisa mise mu'min cizada ilahay baa iskale rasuulkiisa iskale mu'miniintaan iskale gaal iyo munaafiq cize iyo sharaftoona male walakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yaclamuuna ma ay oga barbiri subxana wa tacala wax ma garanayaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo laa tulhikum yayna idin shuqlinin amwaalukum xoolihiin walaa awlaadukum iyo caruurtiina toona can dikri illahi ilahay dikrigiisa yayna idinka mashquulin waman yafcal ruuxii sameeya dalika arrinka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray waanfiquu bixiya mima shay qaarkii bixiya razaqnaakum aan idinku irsaaqnay min qabli an yaatiya intuusan imaanin axadakum midkiin almawtu geeridu intaysan u imaanin fayaquula markaa uu yidhaahdo rabbi rabbigayow lawlaa akhartanii maad idib dhigtid ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo ilaa ajalin ajal intii laga gaadhayo qariibin oo dhow maad idib dhigtid ii kaadis oo fa asadaqa markaa aan wax sadaqaysto oo wa akun aan ahaado min asaalixiina kuwan wanaagsan aan ka mid noqday walan yu'ahir allahu allana dibdhigi maayo nafsan naf dibdhigi maayo idaa goortii jaa uu yimaado ajaluhaa ajasheedu markay timaado wallahu allana khabiirun midkii xoggaan awey bimaa shayga tacmaluna aad samaynaysaa suuradda waxaa lagu gebagabeeyey laba arrimood arrin waxa weeyaan dardaaran layna siinayo oo laleeyahay xoolihiina iyo caruurtiinu yaysan dikriga ilaha idinka mashquulin sax shaqaysta xamaasha ganacsada yani beerta fasha xoolaha tabcada laakiin adduunyadaas iyo caruurtaasi yaynan idinka mashquulinin muhimadii laydin abuuray oo dikriga ilaahay ah ha kaga mashquulina waajibaadka ha kaga mashquulina taas waa ruuxii sidaas sameeyo oo adduunyadiisu ay ka mashquuliso dikriga ilaahayna eed shaqaysateen wax ka bixiyada waxaa laga wadaa sakadii horta waajibka ay ka bixiye sadaqadiina ka bixiye qaraabo xidhiidhiskiina ka bixiye xuquuqdii lagu lahaana ka bixiye xoolaha wax ka bixiye inta aynan idinku imaanin geeri intaan baad jaanis ka haysataan oo hadday geeri idinku timaado markaa waad calacalaysaan oo waxaad dhihi rabbiyow maad wax yar ii kaadisid oo markaa aan wax soo sadaqaysto kuwa wan wanaagsanna aan ka mid noqdee wax yaroo jaanisa maad dib ii siisid intaydan ku calaacalinoo taasi idinku imaanin waxaad shaqaysateen iyo xoolihiina wax ka baxsada haddii ay warkaasu halkaa arrintu gaadhana naf waktigeedii gaadhay ilaahay dibdhigi maayo ilbiriqsina la dibdhigi maayo weligaa haddaad calaacasho lagu dibdhigi maayo jaanis waxaad haysataa intaadan dhiman ayib waxaa marka xoolahan iyo adduunyadan baa laynagala hadlayaa 3 qodob xaqiiji haddaad doonayso inaad adduunyo sharkeeda ka nabad gasho 3 qodob xaqiiji qodobka koowaad waxa weeye adduunyadan jidka ay kugu soo galayso iska hubso oo jid xalaal ah kugu soo gasho waa mid marka labaad adduunyadan intaad shaqaynayso ka shaqaynayso iyayna kaa mashquulin waajibaadkaagii waa qodob labaad waa qodob saddexaade markay kaa baxayso ha ku baxdo meel ilaahay raalli ku yahay oo ogolya saddexdaa qodob haddaad xaqiijisaan khalaas adduunye iyo dhibkeeda waad kala nasanaysaa hal qodob hadduu kaa maqan yahay waa dhacday khatar baana xaalkaaga ku jira macna saddexdaa qodobba 2 qodob baa meeshan ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala oo ah yaynan idin mashquulinin iyo qodobka labaad oo ah baxsada oo sadaqaysta oo aakharo beer aakhara ka dhigta oo ilahay agtiisa ilahay ugu dhawaada subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa tulhikum yayna idin shuqlinin oo idin mashquulinin amwaalukum xoolihiinu yayna idin mashquulinin walaa awlaadukum iyo caruurtiina toona
caruurtiinu yeena in mashquulin min dhikrillahi ilahi an dhikrillah dhikri ilahi xaqiisa yeena in ka mashquulin salaati iyo soonki iyo xajki iyo diinta wadeegideedii yeena in ka mashquulin waman yaf'al ruuhi fala dhalika arrinka faulaika quwasum yaga ayaa al-khasiruna kuwa khasaaray maxay yeelay shay rakhis oo qiimo lahayn bay qaateen kii qaaliga hay qiimaha lahayn raasmaalkiina waa ka tageen wa anfiqu bihiya mimma shay qaarkii bihiya razaqnakum an idinku irsaaqna min qabli an yatiya in tusallimanin ahadakum mitkin al-maut geeridu aysan u iman inta ma jaanis ka haysata hadii ay kugu timaado adiga xoolahaas isma lihidin wixii geeri markay timaado ka dambaysa rag kala iskale oo tabacday mooy adigu ma lihid rag kala iskale oo ya iskale waxa iskale dadka dhaxalka gale kuwaas aad u tabacday marka geeriinta ka horeysa waxa baxsato baad leedahay oo fa yaqula marka uu yiraahdo rabbiga yow lawla akhartani ma dibdiktit ila ajalin muddo intii laga gaarayo qariibin oo dhow ajal dhow waqti yar ma disiis waqti dhow intii laga gaaray wax yar oo jaani samaad igu dirtido nolosha igu celis oo fa asadaq maxaad rabeen hadii lagu celi maxaad sameyn lahayd oo fa asaddaqa marka aan sadaqaysto oo wa akun aan ahaado min as-salihin kuwa wanaagsan aan ahaado waana sadaqaysan dadka wanaagsan waa ku darmanaya hadda saay celisay waa beenti hadii la celiyo xada walaw ruddu la'adu lima nuhu anhu hadii dib loo soo celin lahaa meesha ma ka bilaan lahaa beertii xagee iga taagnay dukaankii xagee hawshu iga taalay maxaa iga kala dhimana halka uma ka bilaabi mooyaan waxba hagaajin mayso ilaahay baa ina yaqaan subhanahu wa ta'ala walan yu'akhkhir Allah alla dibdigi maayo nafsan nafs dibdigi maayo oo waqti loogu dari maayo ida goorti jaa uu yimaado ajaluha ajasheedu markay timaado markaasay ku egtahay la dibdigi maayo wallahu allana khabiirun midkii ogsooy oo xogaal u ah bima ta'maluna waxa sameeynaysan abaalkeedana waa la idin marin way macna hada wallahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi